wacan oo wanaagsan idilahanteenba kuna soo dhawaada barnaamijka Mawlada Dhallaanka waa ka daawataan balka soo booqataan channelkan ku leenahay YouTube ee Dhallaan Kuriye toddobaad sheeko cusub ayaa ku maqashaan sheekadan toddobaadkan idinku haynana waxa la yiraahdaa doqonkii guuleystay aan ku bilaabo waxa la yiri bari hore ayaa waxa jiray caruuray qoys meel ku wada noolaa aabe iyo hooyo waxay lahaayeen 6 caruura 3 wiil iyo 3 gabdhood balse mid kamid ah caruurtooda ayay u aqoonsadeen inuu yahay doqon kan ugu yaraayo ubadka ahaa wuxuu kan ugu shaqada badan leh reerkooda oo adeega haddana sidaas ay tahay waxay dhamaantood ku tilmaami jireen inuu yahay kan qoyskooda ugu doqonsan xataa aabaha iyo hooyada dhalay ayaa sidaa u haystay amba soo la kaca ay sidaas ugu oran jireen niyada ay ka dili jireen wax kasta oo qabtana way ku dhaliili jireen waligiina cidima amaanin wuxuu kan qoysku dhan ugu fariidsan ugu hawlkarsan balse sidaas ay tahay waligi cid kuma abaalmareen maalin maalmaha kamida ayaa dadka deegaanku waxay ku tooseen wiilkii doqonka la moodi jiray oo 7 qof kaliya hogaaminaya dadkii dhan ayaa taas weydiiyay sababta ku dhacday xataa hadii adigu aad weydiinayso sababta taas ku dhacdayna sida tan ay sheekadiisu ku bilaabantay in la daawo waxa wiilka ugu wax qabashada badan la qoyskooda dhan maalintii oo dhan wuxuu ka shaqayn jiray hawsha guriga tan beerta iyo tan xoolaha ay reerku haystaanba cidaan isaga hayni ma qaban jirin hawsha tan balse nasiib darro waligi tan lagu ma abaalmarin wax kasta oo xun baa loo aanan jiray xataa hadii maqaadiir ku dhacdo waxa la moodi jiray in doqonnimadiisu u sabab tahay markii uu ku fooy isagoo shaqo badan riixaya dhamaantood way ku wada qosli jireen waxayna oran jireen doqonkii ayaa dhacay xataa hooyada iyo aabaha dhalay ayaa ka maadsan jiray oo ku qosli jiray wuxuu wiil yar oo ciidina isa noloshiisa danaynin maalin maalmaha kamid ah hooyadii kan ay caruurteeda ugu jeceshahay waa wiilkeeda weyn waxay u habaysay cunooyin kala duwan iyo cabitaan macaan kadibna intii faashu dhiibtay ay ku tidhi duurka xaaba inooga soo gur markuu duurka aaday ayuu la kulmay nin baahan oo miskiina gaaja hayso waxa wax ka weydiisay in cunada uu wato wax yar uu ka siin karo balse waxa uu ku yiri anigaba iguma fillo cunadaydu kadibna intuu iska tagay ayuu xaabadii garaacday markiiba gacanta ayuu ka dhaawacmay oo soo laabtay isagoo dhaawaca soo gurigiisa ugu soo daweeyo waxaabana soo ma gurin hooyadiina waxa jirtay wiilkeedii labaad ee ku xigay curadka sidii ka horeeyo kale ayay cunooyin kala duwan iyo cabitaan macaan u bacaysay isla ninkii baahana ayuu soo agmaray wuxuu ku yiri qayb kasta cunadan yaraan wata kamid ah hadii aan wax ka siiyo aniga ayay iga go'antay waa iga maqantay isna wuu isaga tagay oo wax naxariis uma gelin ninkii baahana sida walaalkiisii hore oo kale ayuu doonay inuu xaabada garaacdo balse isna lugta ayuu ka dhaawacmay dubayuu guriga ugu soo laabtay si uu isku soo daweeyo isagoo wax xaabasidin hooyadu iyo aabuhu ma haysan fursad kale ka ahayn in wiilka kan ugu yar ay doqonka u yaqaanaan isna ay diraan isagoo xataa hawsha hooyadii iyo aabihii u direen uu arkayay midaan kulliba abaal loogu haynin waa ka madax adeegay balse way ku qasbeen sida ubadkeedii hore oo kalena hooyadu uma diyaarin cunno macaan iyo cabitaan kala duwan ee waxay kiish ugu soo ururisay cunadii hadhaadiga ahayd ee habeen hore soo hadhay iyo qashin kala duwan waxayna u dhiibtay faash oo waxay ku tidhi duurka xaawa oo doon wuxuu wiilka kan ugu yar cidina danka ma lahayn qoyskiisuna way daayaceen xataa hooyada dhashay iyo aabaha labaduba waxa looga eexan jiray wiilasha kale oo walaalaha la yahay wuu soo dhaqaaqay isagoo wata kiishka cunada qashinka ha ugu jireen iyo faashkii duurka markuu soo gaaray ayuu la kulmay ninkii baahana waxa ku yiri waan arkaya oo baahi ayaa ku haysa balse xataa anigu wax wanaagsan ma haysto hooyadii halkan cunno qashin iyo baarixi ah ayay ugu soo gurtay hadii aad rabto waad ila cuni kartaa waaba hadaad cuni karaysee balse nasiib wanaag markay kiishkii fureen waxa uga soo baxay cunno cajiib badan iyo cabitaan uusan filayn alla ugu bedelay qashinkii hooyadii ugu riday ninkiina waxa uu ku yiri anigu ma ahayn nin baahan balse waxaan imtixaan ka qaaday adiga 3 walaalaha ahaydeen adiga ayaana guuleystay waxaan ku tilmaamayaa geedka halka ku yaala
adigoo kaliya ayaana goyn kara waxaad kala kulmi kartaa mucjiso noloshaada bedesha waana abaalkii waana natiijada imtixaankii aad ku guulaysatay markuu geedka soo gaaray ayuu hal mar oo kaliya ku dhuftay faashkii watay geedkina waa u go'ay carruuray balse markii geedku go'ay ayaa wax mucjisi ka soo baxay waxa geedka guntiisa ka soo baxay shimbir dahab ah oo wada dhalaalaya mar kaliya ayaa wiilkii doqonka loo haystay tacajabay intuu faashkii iska tuuray ayuu shimbirkii dahabka ha qaatay wuxuu aaday guri kale oo 3 xaflood ay walaalayihiin ay ku nool yihiin habeenkii ayuu halkii seexday shimbirkii dahabka haana agtiisa ayuu dhigay balse subaxii ayaa mid ka mid ah hablahay walaalaha ahaayeen shimbirka aragtay waxayna doontay inay shimbirka baal dahaba ka goosato oo ka xado iyadoo gaatamaysa ay shimbirka agtiisa timi wuxuu ahaa carruuray shimbir mucjisay markii ay taabatay baalkiisa ay gacantii ku dhagtay way dhaqaaqi kari weyday kadibna waxa uu qeeshatay mid kale oo ka mid ah hablihi walaalaha ahaayeen tii ayaa u timi si ay u caawiso walaashooda ay u soo furto balse markii ay gacanta qabatay ayay labadii gacmood isku dhageen waxay dareemeen in wax khatari dhaceen gabadhii saddexaad ayaa ku soo carartay way u digeen oo waxay u sheegeen inaysan u iman balse maba hubsanayeen gacanta ayay u dhiibtay oo saddexdii habloodba sidaas ayay gacantiisa ugu dhigtay markii uu hurdo dhammaystay ayuu toosay wiilkii doqonka la moodi jiray kadibna shimbirkiisii ayuu qaaday suuqa uga soo iibiyo waa shimbirkii dahabka ahaaye markuu magaalada la dhex marayo oo muddo socdo ayaa waxa ka soo horbaxay wadaad waxuu la yaabay wiilka shimbirka dahabka wata 3 habloodna hogaaminaya waxuu sidii xaaladani maaha tucaadiya kadibna waxuu doonay in mid ka mid ah hablaha uu ka reebo balse isna gacanta ayaa gacantii gabadha ugu dhagtay nin kale oo ganacsado oo arkaya ayaa ku soo cararay si wadaadka u badbaadiyo isna gacantiisa ayaa gacantii wadaadka ku dhagtay wadaadkii ayaa mar kale qayliyay waxaana ku soo yaacay 2 nin oo beeraleeya si ay wadaadka u badbaadiyaan balse mid kastaba kan kale ayay gacantiisa ku dhagaysay sida mucjisada ahna waxa wiilkii doqonka la moodi jiray carruur ay ugu suura gashay inuu hogaamiyo 7 qof iyo shimbirkii watay dadkii deegaanka oo dhan way yaabeen mucjisada tan ka dambaysa balse wiilku wuxuu ahaa ku caqli badan waxa uu maqlay in deegaankooda uu ka jiro boqor dhalay gabadh qurux badan balse gabadhaas ay tahay mid habeen iyo maalin murugaysan nolosheedo dhan ooyda lana waayay qof kaliya ka qosliya boqorku wuxuu go'aan ku gaadhay in wiilka kaliya ee gabadhiisa hal maalin ka qosliya uu u dhisi doono sidaasna uu boqor ku noqonayo wiilka gabadhiisa guursada wiilka doqonka la moodayayna isagoo 7 qof iyo shimbirkiisa dahabka hogaaminaya ayuu qasriga boqortooyada la aaday dadka wixii arkoo dhanna way ku qoslayeen kuwana way la yaabayeen mucjisada ay indhahoodu qabatay qasriga boqortooyada ayuu afka uga soo galay isagoo 7 qof iyo shimbirkiisa hogaaminaya markii hore waa la argagaxay markii dambana dadkii wada arkay oo dhan ayaa yaabay ilaa markii dambe dhammaan dadkii qasriga boqortooyada ku jiray oo boqorka iyo gabadha uu dhalay ka mid yihiin mar kaliya ay qosol isxajin kari waayeen dhammaantood ayay wada qosleen waxay ka yaabiyeen sida wiilkan mucjisadii uu hogaaminayo 7 qof isagoo aan wax dhib ah ka mudan gabadhii murugaysnayd ee nolosheedu dhan way jirtayna waxay bilowday qosol iyo farxad boqorkuna wuxuu helay wiilkii ugu horeeyay ee nolosheeda ka qosliya gabadha uu dhalay wuxuuna sidaa gabadhiisa ugu guuriyay wiilkii doqonka la moodi jiray balse noqday geesiga lama arkaanka ah sheekada tan carruuray waxaan ka baranaynaa faa'iidada ay leedahay deeqsinimadu iyo guusha lagu gaaro markii aad dadka kale wax ka siiso waxa aad haysato xataa ha kuguba yaraatee sheekada tani waxay tusaale u tahay sida imtixaankii ku saabsanaa bakhaylnimada ugu guulaystay wiilkii doqonka la moodi jiray labadiisii walaali kalena ay ugu dhaceen intaynu tan iyo toddobaadka soo socda sheekada tan ku xigta ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo waqtigu ha idin wacnaado haddaad sheekadan ka heshay doonaysana inta ku xigta inaad daawato fadlan boggeena ku soo biir oo ka mid noqo asxaabta ku xidhan Somali Documentary